kulankan oo ahaa mid loogu hadlayay amniga iyo howlgallada ka dhanka ah kooxda argagixisada ayaa maanta waxa ay la qaateen wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed, saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo kuwa ATMIS ee ku sugan magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. Kulanka oo ah kiisii labaad oo lagu qabto Baraawe ayaa waxaa shir gudoominayay wasiirka amniga Koonfur Galbeed Maxamed Isaaq Cabdi. Gudoomiyaha maamulka Baraawe Dr. Liibaan Abuukar Cusmaan oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in kulamadan ay yihiin kuwo loogu diyaar garoobayo howlgallo dib u xireen ah oo ka bilaaban doona deegaano hoos yimaada magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed. Waxaa qabsoomay kulankii amniga bilaha ahaa ee degmada Baraawe kaasoo waxay ahayd isugu yimaadaan dhammaan qaybaha kala duwan ee saraakiisha ciidanka qalabka sida iyo ciidamada ATMIS saraakiishooda iyo maamulka degmada oo ay maanta ku wehelinayeen wasiirada u joogay muddadan isbuuca ah magaalada Baraawe inay u kuurgalaan xaaladaha kala duwan ee magaalada Baraawe ay ka mid tahay xaaladaha amniga ayadana uu maanta qabsoomay kulankii amniga guud ee maxay ahayd degmada Baraawe oo qaybaha saraakiishaasna ay ka mid ahaayeen oo shir gudoominayay wasiirka amniga gudaha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed asigana la isku waraystay xaaladda ay marayso amniga magaalada Baraawe iyo hareeraheeda iyo qaabkii loo wajihi lahaa dagaalka ka dhanka ka ah argagixisada al-shabaab ee khawaarijta maxay Soomaaliya waqti badan dhibaatada ku hayay oo haddana maxay ahayd meelo badan oo Soomaaliya ka mid laga bixiyay oo mar dhowna ay soo socoto wajigii labaad inuu ka bilaaban doono Koonfur Galbeed ku warbixiyeen sidaas darteedna la kala qaatay amniga guud ee magaalada heerku marayo iyo sidii lagu sii xoojin lahaa ayuu qaabilsanaa. Gabagabadii mas'uuliyiinta waxa ay kormeer ku tageen xarooyin ay degan yihiin qoysas ay kooxaha argagixisadu ka soo barakaciyeen guryahooda. Gudoomiyaha degmada Baraawe Dr. Liibaan Abuukar ayaa u sheegay mas'uuliyiinta wasiirada in qoysaskan hantidooda laga qaatay guryahoodana laga soo barakaciyay haddana ay ku jiraan xaalad aad u liidata. Gudoomiyaha ayaa xusay in loo baahan yahay gargaar degdeg ah si wax loogu qabto noloshooda. Aweys Muumin Xasan Aweys Okay, warbaahinta qaranka Shabeellaha Hoose.